qof haddii natiijooyin dhacay su'aalo laga weydiiyo waxay noqon kartaa inuu ka gaabsado. haddii aan ka hadlo dagaal cid wax ku qaadi kartaa haba yaraatee ma jirto ama cid xaq u lena ma jirto. dagaal sidiisaba waa xog ku dhig. cabdicaziizbk.com waa hoyga wax soo saarka ah. fadlan dheh subscribe. Thanks. hadday noqoto in aan dagaalanno waxa keliyoon u dagaalami karnaa waa sharafteenna. mas'uuliyad ayaa naga saara sharafteenna in aan ilaalinno. adiga haddii aad doonto si qalad waad u fahmi kartaa, maxaa yeelay qof walba aragtidiisa ayaa la saxan. anigana aragtidayda ayaa ila saxan. laakiin haddii aan xaqiiqda kuu sheego waxa meesha yaallo aragti maba ahinba. annaga hal qof ayaan xushmaynaa, waana mudana gaandi. xushmadaasna waa mid weligeed soo jiri jirta. waxa ay sameeyeen way ila saxnaayeen aniga. aragti ma ahin, mana noqon karto. waa wax cad. mudane dhibaatadan taagan aniga hal oo keliya ayaan u hayaa, laakiin fikirkiinan aniga muhiim ayuu ii yahay. arrintan aniga aan wato haddii aadan idinka ka hor imaanin waxaan hubaa guul inaan gaari karo, balse idinka igu taageera inaad fikirkayga igu raacdaan. dhammaantiinna waa la socotiin waddankan waxaa ku batay dembiyada dilalka iyo musuqmaasuqa. adiga haddii aan kuu soo jeesto khaasatan Mr. Baradaan, waqtiga aad ahayd sargaal boolisa wax walba gacanteen ayay ku jireen. sidaa daraaddeeda hadda waxaan rabnaa inaan kaa faa'iidaysano khibradihii markaas aad isticmaali jirtay. ma noo sharaxi kartaa si aan anagan arrimeen xal ugu helno? master jigdar sideeda bannaanba waxaan ilowna annaga dadka ciidamada noogu jiro. tan kale waxaan hilmaamnay muhiimadda ay noo leeyihiin dowladdeena waxay kaloo hilmaamtay dadkaas mas-uuliyadda aan saaranay iyo shaqada ay noo qabanayaan muhiimadda ay noo leedahay. waxaana loo baahan yahay dadka shaqada loo dhiibanayo in ay yihiin dad shaqadaasi khibrad u leh, kana soo bixi kara shaqo alaala shaqadii loo dhiibto, qof lagu kalsoonaan karo, musuq maasuqana la dagaalamayo. yaa maskaxdaada ku jira? saadu akaash waa nin lagu kalsoonaan karo, shaqadiisuna aad ay u sarrayso, qarankana wax badan ayuu u soo qabtay, wuuna dhammaystiran yahay ninkan. haddii aad i weydiiso shaqadan nin ka soo bixi karo, ninka la yidhahda saadu nin uga habboon haba yaraatee ma jiro. anigana fikirkayga wuxuu ahaa lahay ninkaas in loo dhiibo shaqada. cabdicaziizbk.com waa hoyga wax soo saarka. fadlan dheh subscribe. adoo kiisas badan galab agteenaa fadhisaa naga aamus. Mr. Bardaanba haddii uu leeyahay hawshan siduu oo keliya ayaa qaban kara, annaga waan ku qasbannahay siduu inaan dib u soo celinno uu hawshiisana qabsado. kaashaf waxaan rabaa siduu inaad wacdo sida ugu dhaqsiyaa badanna uu ku imaado adigana aad la kulanto. waaya tali. هاي سدوا أجناش حفدي ساون سادو مستر سادو كالي
ila joogaa waayahay wax yar sug mudane wasiirka la hadalo halo taliye halo Sadu jagdaar ayaa kula hadlaya akhbaar muhiim ayaan ku hayaa dambiidan lagugu soo ogo dhan waxaan rabaa inaad bari ka noqoto anigana waxaan rabaa hal asxaan oo kaliya inaad ii samayso kooxda buraadka baxsadka kula jirta ayaan rabaa dib inaan u soo nooleeyo kooxdaasna adiga ayaan rabaa inaad madax u noqoto iga ogolow oo kaliya kuwa aniga eedaynta dusha iga turaya warkooda meel iska dhig baaritaan sameey haddii kiis laygu helo anigaaba diyaara in lay ciqaabo laakiin haddii laygu waayo dembi la'aan ayaanba ahaybo middaasne aniga wax asxaana inaad igu samaysid uma baahni sidees iskaga dhaadhicisay inaan dib u soo laabanayo siduu i dhegaysa laakiin adiga waa mahadsan tahay mudane laakiin qaabka loo hadasho maxaa waaye qafkan qafkiisa ma kasi aadin adiga ma taqaanaa qofkuu yahay ها maxuu ka sii wasiirka arrimaha gudaamo waayahay maxaad ii weydiinaysaa qofkuu yahay abdicaziz.com waa hoyga wax soo saarka fadlan dheh subscribe thank you dadku ku imaaday ahaayeen waa qolo waddada ka soo dhuntay adres ayay i weydiinayeen adigana dadka waddada ka soo lama biyo qumbaleys yahay moo aabbo ma ogtahay muusigan sameeyey ka waranba muusigayga sidoo ku leeyahay beela waaye erayada ii sheeg bal ilaa hadda aabbo eraya maba isku dayman u samayninba erayadan ku diyaarsanen ma laxan samaysay laxanka intaan la samaynin ka hor erayadaa la aabba sameeyay laakiin ilaa hadda adig gabayga hooyo ay ku tiri jirta ma ii sheegin kalgaceelkaada waa ii darajo jaceylkaada waa ii dan erayadaadu waa ii daawo aragtidaaduna waa ii dabiib qalbigaad wehel u tahay naftaad raalli gelisaa murug waxay jirtaa markaad maqan tahay erayadan iyada ayaa ii soo qortay aniga mar walba shaqa ayaan ku mashquulsanaan jiray iyadana guriga ayay kalinimo ku dhammaysan jirtay adiga sida hooyadaa oo kale qoraa waa tahay laakiin intaadan muusiga diyaarin waa inaad erayada diyaarsataa aflaamta hindiga maraykanka kartoonnada iyo weliba musalsalada oo afkaaga hooyo ku tarjuman waxaad ka daawan kartaa kalgaceylkaadu waa ii darajo jaceylkaaduna waa ii dan erayadaada waa ii daawo aragtidaaduna waa ii dabiib qalbiga ayaad wehel u tahay nafta ayaad raalli gelisaa murug waxay jirtaa markaad maqan tahay gacalkayga aa geed dheer la saaray galabtaan godobaa layga galay waa go'e aniga waa go'e galabtaana gaf layga galay oo garabkayga la gooyey gacalisideedana god ay u hooyatay go'e aniga waan go'ay caadi ma tihid geesigayga adiga ayaan garabkaa rabaa saduu waa loo baahan yahay abdicaziz.com waa hoyga wax soo saarka fadlan dheh subscribe thank you adiga u danaynaysa mise waxaa rabtaa ninkaas inaan u tagno kadibna aan ku dhaano shaqada ku soo laabo absolute surkaantii intaan haysano ninkaas ma loo baanaan ugu mashquulinin suraadka aad sheegaysid horta waa nin asiga dhanba iskama maqan surkaantiina asiga ma aha nin hool lagu aamini karo kalsoonina ma qabo qof walba xabad ayuu isaga dhuftaa ninkaas zaduuna ma aha nin ay gaarayaan waa nin howlkar shaqada loo dhiibana si wanaagsan uga soo baxsanayo taas ayaa sababta inaan codsado shaqadana lagu soo celiyo oo haddama waxaadna leedahay ninkaas la-aantiisa booliska lixla dheera ma goob garaysan karaan war heedhayga aamusaan ku dheh adigoo banbay dhex taagan ayay wax walba ka dhacayaan xaaladuna waad xakamayn waysa sidaa daraaddeeda saduu ayaan u baahanay asaga ayaa wax walba xakamayn doona arrintaana dhib inaad ka keento ma baahna aniga mister baradan waa nin aan rabna fikrado fara badan inaan ka kororsanno adiguna su'aalo maalaa yacni ayaad weydiinaysaa
mister berlan hadalkaagu waa uu saxan yahay annagu ninkaas waddo qaldan ayaan ku raadinay mana loo baahnayn taas xalkeen bal adiga siduu haddii aniga aan u tago si qaasan ula hadlo waxaan rabaa inuu iga diiday ee ma u tagaa taliya ku dhaqaaq qatar soo turhay mar kale siduu balilaa iska dheelo saabe hay adeer bardaan ahaa adeer hay ii waran ii dhici marka hore waan kuu duceeyey ma ii hilmaamin miya adeer mala isku ciyaaraa seen ku ilobaya qiso dhowow waan dhowahay marka hore aabbaan la kulmaa waay warniyo bambaayo dhinaca ka holciisa meeshaan kaligaa maxaad ka qabanaysaa haye inta maxaa ku keenay wax kale ma jiraan adigan ku waxiisoo keliya baliilahoo dhan idinka qaata dheen malaygan fresh waaye haddaan badda ka soo qabta cunnokaraskan ayaa ku baray hooyadiisa iyo daruufaha fiswaam ayaa halkan loogu yaqaanaa mambayna surmaay ee makugu daraa farxad ayay ii tahay maadaama aad adiga aniga isoo booqato saa hadday tahay mar kasta waa inaan ku soo booqdaa dib ha u laaban war meeshaad degantaa maxaa sulaalkaaba iga bidowaya dabeel adigaa dhanka hawada u jeesti waa kugu soo laabatay dadka waxay u malaynaya inay kaa fakatay war sheekada sintiiga daysa biyaan isaga dhaqan lehay seebis yaraanteeda hata soo xasuusisay go'aankii wanaagsanaa ayaad qaadatay dowladdeeda ku soo dhowaa waa mahadsantahay tacsiyada mudan annaa dadka ma la wadaagi karaa thank you waxaan u tacsiyeynayaa familka mudana annaa aniga abad intaan noolahay qof madaxayga uma raaricin waalidiintayda ha ahaadana ama macallimiintayda laakiin isaga madaxayga hoos ayaan u geeyey sababtoo ah noloshayda ayuu wax ka beddelay aniga si fiican ayaad ii garanaysaan waxaan ahay ninkii burcadda baxsashada ku toogan jiray sida qashinkii oo kalena u nadiifin jiray gurigaada hortiisa 7 ama 8 maalmood hadduu cabdicaziizbk.com waa hoyga wax soo saarka fadlan dheh subscribe sidaasoo kale ayay magaalada ugu buuxaan burcad sida qashinkii oo kale u yaallo waxaa la rabaa qof nadiifiya burcaddaas qashinkii oo kale ah baxsad in lagu dilaana macquul maaha waxaa loo baahan yahay si cilmiyaysan in loo dilo sababtoo wax caddayn a laguma haayo laakiin hadda waxaan rabaa idinka hortiina inaan dil ku sameeyo dadkoo dhan waxay i weyddiin doonaa sababta aan waxaan u sameeyey war dadkaan halayla qaada kaalaya gurmad ayaan u baahanahay shaqa ka fariisinta marka laygu samaynayo waxaan baxsad ku dilay 56
laakiin halkan aan dili wuxuu u dhigmaa 56daas dhibaatada weli ma aysan dhammaanin hadda ayay bilowday waxa aan aniga sameeyey waan ku saxnaa waxaa jira dad fara badan oo jagidaaroo kale ah cabdicaziizbk.com waa hoyga wax soo saarka ah fadlan dheh magaca oo keliya ayay ku kala duwan yihiin laakiin waa isku mid dhammaantood jiilka cusub ayay hawshan u taallaa weliba in ay wax ka qabtaan laakiin maxay wax ka qabtaan siyaasiyiinta ayaaba tuugadii ugu waaweynaa ah intiiba ay cadaalad darro jirto cid wax ka qaban karta ma laha waa inay sidaydoo kale noqdaan oy baxsad ku dilaan weliba dadka hortooda in lagu ciqaabo ayaa loo baahan yahay burcaddaas waxaan hubaa dhallinyarada in ay samayn doonaan mustaqbalka soo socda waan hubaa in ay samaynayaan maxaa yeele intaan ka badan aniga ma sii jiraayo wakhtigooda ayaa la joogaa aniga ma sheegi karo fikirka aad iga aaminsan tihiin laakiin waxaan ku faanaa in aan askari jira ah weligayna waan ahaa doonaa waxaan ugu mahadcelinayaa wiilkayga aman sababtoo ah asiga dartiisa ayaan ugu soo laabta hawsha mahadsanid wiilkayga oo ma waxay kula tahay arrinkaa aniga darteeda inaan u sameeyo ma kula tahay dana gaara inaan ka lahaa aniga ilama ah aman waa inaad ii ogaataa anigii u hadlay cabdicaziizbk.com waa hoyga wax soo saarka ah fadlan dheh subscribe thanks Thank you.